gabadhan waxay tiri inkastoo aan magaceed qarinayo gabadhan waxyaabaha su-aalaha qaar qofka soo qore hadday si wanaagsaneen in bulsho lasoo bandhigo insha allah qofka soo qore magaciisa waa qarin doonaa asad waan ku jeclahay inaa i guursato diyaar ma u tahay wallahi bilaahi inaa ku guursada diyaar u tahay miya bilaa shukaansi bilaa wax bilaa isbarasho bilaa nothing diyaar ma u tahay inaan guursado because waa kay adaa soo qorte ma diidayo diyaar ahay kaale insha allah intaasna ay kaftan gabadhaa su-aasheed waxaan ku jawaabo ma aqaane okay qofka xiga big mood gabadhan triba walaashay waaye leelxaajiyo inta ka salaama walaashay big mood yani aada ku jeclaa ma kawada أنا مرة كثير والله أنا مرة حوشتيني يا أخت الحبيبي حوشتيني يا أخت الحبيبتي واي حبيبي ويلك واي حبيبتي نقول واي عربي ساسو كالبرتا أوكي خوفك حيقو ما هديري waxaan jeclaystay inaan kulanno haddii ay macquul tahay marka bandow la qaado it is my dream bro real okay ma hadyare waxaa laga yaabaa inuu maleeshii joogo wuxuu jeclaystay bandow kadib inaan kulano insha allah walaalkii waan kulmeynaa insha allah tacaala bandowgan ilaahay dadka ka fududeeyo dadkan ilaahay caafimaad siiyo insha allah ma hadyare insha allah waa kulmi doonaa walaalkii okay qofka xiga armaan xaajo markaa yaryahay mise waa gaawen yahay armaan xaajiyo waa walaalkeyga oo iga weyn waxaa inoo dhexeyso armaheen xaajiyo armaana weyn armaheena ku xig anaa ku xig saas waay armaan iyo armeena armaana si weyn kadibna armeena kadibna ani waay marka armaan xaajiyo walaalkeyga intaa kaa salaama insha allah iska barta armaan xaajiyo waa walaalkiina waa armeen xaajiyo camal waa cabdullaahi xaajiyo camal waa bashiir xaajiyo camal waa 27 xaajiyo camal qofka xigo asad xaajiyo weli waxaan kaa sugaynaa sida sawirada loo edit gareeyo insha allah taase waan ku fikirayaa dad badan iyo dhalinyar badan igu xiran oo isu weydiiyey asad waxaa u baahannahay sida sawirada loo edit gareeyo inaan noo faa'iidaysid insha allah waa idin faa'iidaynaa qof walbo ilaahay yani cilmi siiyey qofkaasne waxaa aad iyo aad u wanaagsan inuu asigana dadka kale usoo bandhigo si asigana lagu sii faa'iido marka insha allah dhowr program oo ay kamid yihiin sida sawirada loo qaado iyo sida loo edit gareeyo insha allah waxaan soo samayn doonaa mar dhow insha allah videoyaashan soo socdo aad iyo aad umahadsantahay suheyb okay qofka xigo duro diblomaasi duro awees abshir intaa kaa salaama waa lagu waayay saaxib asad keligee lima waanin adig waa lagu waayay waa lagu waayay waxaana waayay oo na kala geeyey waxay tahay lockdownka ama bandowga ka jiro magaalada saas darteed aan isku waani marka intaa kaa salaama gacan isma gelinayno oo ogtahay inta le kaa salaamaano marka gabadhan xiga waxay tiri idane Rihanna I want to know your ex-girlfriend about the story okay gabadhan waxay ila soo xiriirtay 2 days ka hor markay soo aragtay videoga aan ka hadlayay ma ex ama jaceylkayga hore videoga ay soo aragtay kadibna waxay ila soo xiriirtay dhanka snapchat-ka waxay u tiri waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa yani wixiina dhex maray ama wixiina kala geeyey inaad kasoo sheekaysid hal video insha allah taasne waa ku fikirayay gabadhaas codsigeeda insha allah waxaan kasoo samayn doonaa hal video isla su-aalaha halkaan iga soo qortay oo tii lamid ah waxay tiri I want to know your ex-girlfriend about the history yani waxaa haddii aad daawato muuqaalka oo aad dhamaystay waxaa kaa rajaynaa inaa comment qurux badan aad ka bixiso mar walbana waxaa jeclaa inaa kusoo bandhigo waxyaaba ku xiisi geliyo muuqaalka noo sheer garay aadan umahadsan tahay fikirkaagana nala wadaag